madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar Cajar ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay VOA-da waxa uu sheegay in la bedeli doono calanka dowlad deegaanka Soomaalida isla markaasina dib loogu soo celin doono calankii horey uga muuqday astaanta calanka Soomaaliya. madaxweyne Cajar ayaa dhinaca kale wuxuu sheegay in ahmiyadda koobaad uu siin doono sidii uu dib ugu soo celin lahaa xuquuqul insaanka gobolka isla markaasina cadaaladda uga shaqeyn lahaa wuxuuna sheegay inuu si weyn loogu tuntay xuquuqul insaanka. haddaba khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa ayuu iigu waramay. waa mahadsan tahay. waxaan u arkaa mas-uuliyad ballaaran oo maaragtay madaxa laga saaray. waxaan aaminsanahay inaan maaragtay si daacadnimo ah oo ku salaysan in bulshada Soomaaliyeed gobolka ku nool dhammaan cadaalad loo sameeyo aan u gudan doono. waxaana ugu baaqayaa dhammaan shacabka deegaanka in ay kaalintooda ka ciyaaraan soo celinta sharciga iyo nidaamka ee deegaanka. waa gartay, ma filaysa hore in lagugu magacaabayo xilkan oo qorshe ma lahayd degsan oo aad rabtid inaad ku dhaqaaqdo? anigu ma filayn in lai magacaabayo koor musharax ma ahayn, laakiin fikir ahaan maadaama qof qoraa ama bilisi ahaa waxyaalaha ay tahay in gobolka lagu dhaqo ama siyaasada ay tahay in maarata gobolka lagu wado seeka diyaarsanaayeen maadaama mar walba aan dad ka hadli jirna oran jirna waa saa u dhaqantaa sidii aan owl lahayn ha u dhaqantoba hadda u dhaqmana marka waa noo diyaarsan yahay. waa gartay, cabasho badan oo xagga xuquuqul insaanka ayaa ka jirtay deegaanka muddo aada u dheer. marka waktigan maadaama aad adigu madaxweyne tahay nin muddo badanna usoo ololeynaya xuquuqul insaanka aad tahay, maxaa kaaga qorshaysan xorriyatul qoolka, xuquuqul insaanka iyo nabadgelyada xataa deegaanka? ahmiyadda koowaad waxaan siinaynaa saad sheegtay inaan dib soo celino xuquuqul insaanka oo ahayd arrin 7 sano u dambeysay ka maqnayd meesha. dab ahaan 7 sano keliya ma ahe tan iyo 1954 sidii deegaanka u horsagay dalka Ethiopia dowlado maaragtay dimuqraadi waddanka kama jirin. marka arrin dheer oo ku tabasho xuquuqul insaan oo soo jirta oo dheeraad ayaa ahayd si kala daraato oo 7 sano ugu dambeysay ha ahaato midda ugu badan ugu xanuunka badnayd. 11 sano u dambeeyayna iyaduna ahayd xanuun dheeraad oo kasii daran. marka arrinta xuquuqul insaanka inaan xooga saarno oo dadkana uu dad bini-aadam yahay si bini-aadamno u noolaado sida xawayaanka una maaragtay u noolaanin inaan cabsi jirin in dadka waddankiisa si xora ugu raaxaysto waa ahmiyadda koowaad ee aan runtii igu dhiirigelisay inaan xilkan raadsado. waxaa kaa barbar socota xorriyatul qowlka iyo xorriyatul maaragtay qoraalka iyo xorriyatul ururka is-ururinta iyo xorriyatul mucaaradada waxoo dhan dadka loo fasaxo ay xaq u noqdaan oo sida deegaanada agtooda ee Soomaaliyeed oo kale ay u dhaqmaan. dhaqanka iyo diinta in la soo celiyo oo maaragtay bulshada dib lagu soo dabaalo, in si cadaalada dhaqaalaha meesha yaalo loogu qaybiyo iyo shaqooyinka, iyo in astaantii Soomaalinimo ee laga cararayay dib loo soo nooleeyo. arrimahaas ayaan xooga saaraynaa, laakiin si bulshada u bogsato xuquuqul insaanku waa qodobka koowaad ee runtii aan xooga saari doono, annagoo weliba ka eegi doona inayna noqonin qaab la iska argoosanayo ay noqoto dadkii dhibaatooyin ku dhaceenna isha lagu haynayo sidii ay u bogsan lahaayeen. waa garta, dadka qaar waxay leeyihiin waa mas-uul madaxweyne dowladda ay wadato oo dowladda ay magacooday xisbigii hore u jireen uu magacaabay, marka wax badan ma uu bedeli karo. marka dadka sidaasi aragtidaasi qaba maxaad ku oran lahayd? walaalka ma socoto nidaamka Ethiopia ma socotin, waa nidaam xiran oo aada u adag. bedelkii hadda ku yimid maaha midkii banaanka ama mid doorashooyin ku yimid. ra-iisul wasaaraha Ethiopia laftigiisa lama dooran hadda. wuxuu kamid ahaa xisbigii cadaadiska faraha badan dhulka ku waday, laakiin isagu kasoo dhexbay isagoo shaksiya wax badan uu ka bedelay uu furfuray. marka ahmiyaddu ma aha qofku sida uu ku yimid, waxaa ahmiyada shaksiyadiisa iyo hogaanka uu rabo inuu hogaaminta uu rabo inuu meesha qaabkii lagu keenay xilligan ma in xilli doorashooyin la gelayay. wuxuu ahaa transition buu ahaa. transitionkana kolley nidaamkii ugu habboonaa ee loo gala ahayd unbay la noqotay xisbigii talada hayay ee gobolka maamulayay iyo dowladii federaalka iskaashanaya iyo latashiyada ay la sameeyeen shacabka inay u galaan. taa waxba kama qaban karo anigu, laakiin mar haddii aan meeshii imid waxaa ila gudboon inaan maaragtay sidii ummadaasi ay sidii hore dhaanta ugu noolaan lahayd dhanka siyaasadda, dhaqaalaha iyo bulshadaba, loona jihaysto in 2 sano kadib loo diyaargaroobo doorashooyin xor iyo xalaala. marka waa fursad baan qabaa shacabka loogu diyaarinayo inay maaragtay isu diyaariyaan inay codkooda cid ay iyagu rabaan ay maaragtay ku keensadaan.
waxaan ballan qaadaya 2 sano kadib haddii shacabka ay doortaan cid kale inaan ku wareejiyo oo meesha isku dhejin ama ku dagaalamin sidii caadada u ahayd madaxda afrikaanka. waa gartay ayaan ballan qaadaya duruufo iu kalifaya inaan meeshaas ku adkaysano ma jiraan runtii oo shakhsiyeed iyo dhaqaale toona. waxaan aaminsanahay inay tahay fursad aan shacabka naga isugu soo ururin karno oo xorriyad ay raadinayeen muddooyin fara badan aan usoo celin karno iyo xuquuqo fara badan oo kale dadka. waa gartay arrinta oromada iyo soomaalida dagaalka u dhexeeya ayaa waayadan aad iyo aad loo hadal hayaa oo dhibaatooyin fara badan ayaa ka jira dhulka soomaalida Ethiopia bal taasi see u wajahaysa ayada laftirkeeda. waxaan jeclaan lahaa inaan ku sheego in 3 arrimood ay yihiin 3 arrimood ugu muhiimsan ee aan ku dhaqaaqi doono guud ahaan. arrinta ugu horeysa koowaad waxa weeye midnimada shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka inaan xooga saarno. tafaraaruq fara badan iyo qabyaalad iyo haysi badan ayaa abuurmay. awalna sii jeejay 10 sano dab lagu shiday bensiin lagu daadiyey. arrintaasi looga hortagi lahaa waa inaan ka diyaar garownaa. waan bilownay inaan hawshaas ka shaqeyno oo aan si daacadnimo u wajahno. taa macnaheedu maaha in cid walba jeclaan doonto qaabkaan wax u wadno. cid diidi doonta way jirtaa. ciddaasna xor bay u tahay inay mucaarado telefishinada ka sheegto fikirka ka duwanka annaga ee hayso banaanka la istaagto si xorada ay u sheegato oo fikir u sheegto in mucaarad ka dhasho gobolku waa arrin aan ugu diyaar garoyn oo aad u fiican. marka midnimada Soomaaliyeed waxaan xooga saaraynaa shacabka in cadaalad loo sameeyo inaan beel ka badsataa ay jirin sidii maaragtay hadda ka hor ahaan jirtay in maaragtay astaanta gobolku ay dhammaan qabaa'ilada Soomaaliyeed ka muuqdaan. waxaan jeclaan lahaa inaan ku sheego in 3 arrimood ay yihiin 3 arrimood ugu muhiimsan ee aan ku dhaqaaqi doono guud ahaan. arrinta ugu horeysa koowaad waxa weeye midnimada shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka inaan xooga saarno. tafaraaruq fara badan iyo qabyaalad iyo haysi badan ayaa abuurmay. awalna sii jeejay 10 sano dab lagu shiday bensiin lagu daadiyey. arrintaasi looga hortagi lahaa waa inaan ka diyaar garownaa. waan bilownay inaan hawshaas ka shaqeyno oo aan si daacadnimo u wajahno. taa macnaheedu maaha in cid walba jeclaan doonto qaabkaan wax u wadno. cid diidi doonta way jirtaa. ciddaasna xor bay u tahay inay mucaarado telefishinada ka sheegto fikirka ka duwanka annaga ee hayso banaanka la istaagto si xorada ay u sheegato oo fikir u sheegto in mucaarad ka dhasho gobolku waa arrin aan ugu diyaar garoyn oo aad u fiican. marka midnimada Soomaaliyeed waxaan xooga saaraynaa shacabka in cadaalad loo sameeyo inaan beel ka badsataa ay jirin sidii maaragtay hadda ka hor ahaan jirtay in maaragtay astaanta gobolku ay dhammaan qabaa'ilada Soomaaliyeed ka muuqdaan oo hal qabiil iyo wax lamida aynu isku koobin. arrimahaas waa arrimahan rabnay inaan ka shaqeyno oo aan xooga saarno. waa gartay arrinta labaad waxa weeye xiriirka oromada iyo Soomaalida sida aad sheegtay inaan maaragtay isaguna dad walaala oo isku maaragtay taariikha oo dana fara badan ka dhexeeyaan oo dagaal aan macno lahayn la dhexdhigay weeyaan. taas sidii loo xalin lahayn laga shaqeeyo. propaganda badan oo hadda socoto oromada iyo Soomaalida la dhexdhigay runtii ma aha wax duurka ka jira. waa arrimo siyaasadaysan oo nidaamadii ka faa'iiday dhiigga daatay ay wadaan iyo dad kale oo iyaguna u arkay in danahooda ay ku fushan karaan haddii colaadu sii socoto. arrimahaas si adag baan uga hortagi doonaa oo sharciga iyo maaragtay soo dhaweynta dadkaba la xidhiidha. arrinta saddexaadna waxa weeye inaan kaalintaan ka wahayn Soomaali ahaan waddanka siyaasadda Ethiopia gudaheeda aan raadsano oo aan kaalinta hadda aan ka ciyaarno midka balaaran ka helo. 3daas ahmiyad ayaa nooga horeeya. waxaan qaban doonno tababarada ku ay mid kamid ayay tahay. waa gartay marka aad ka hadlaysay arrimaha astaanta gobolka Soomaalida iyo qabaa'ilada dhan xataa inay ka dhex muuqdaan waxaa jirtay in durbaba calankii hore ee gobolka uu lahaa oo soo jiray waayadan dhexe la bedelay oo calankii hore uu u lahaa gobolka Soomaali galbeed dib loo soo celiyo calanka buluugga Soomaaliya qayb ahaan uu uga jiray marka iyo wax ka bedelka dastuurka bal arrimahaas laftooda sideed u qaadateen. arrimahaasi koley process sharciga waa inay maraan oo maaragtay la ansixiyaan laakiin fikir ahaan wuxuu ahaa waxaan maanta ka hadlay sidaan rabnay inaan u wajahno deegaanka markii la asaasiyey magacii loo bixiyey ee lagu heshiiyey ee dadka Soomaalida iyagoo hore ay doorteen wuxuu ahaa magaca deegaanka Soomaalida. magac kale lama soconin. marka Ethiopiaanka kale ee waddanka ku nool xuduudaha dad qaasisan bay leeyihiin sida Oromada, Anfarta iyo Tigreega iyo dad walba waxay leeyihiin dad iyaguna xadka dhinac kale ka degan oo isku hayd yihiin. sabab markaa Soomaalida loo dabawado magac kale oo Ethiopia loo dabawada meesha ma taalo aan aragtidayda. waxaan markaa rabnaa in magacii deegaanka Soomaalida lagu soo celiyo inaan maaragtay qeexno qasab maaha. waan qeexanahay bal yaqaan baan nahay Soomaali baan naliya Soomaalida in cidii nagu ogolaato taraabicin cid kale inaan magacana wax kale ku darin. taas ayaa asaas waa fikirkaas iyo in sharcigii lagu noqdo oo maadaama dastuurka waxa ku qoray ilaa hadda deegaanka Soomaalida calanka waxaan xooga saaraynaa in aqtaantii Soomaaliyeed isku soo Soomaalida mid tahay dhinaca bulshada dhinaca dhaqanka inaan muujino. dhinaca siyaasadda dalal kala duwan waan ahaan karnaa laakiin dad aan maaragtay ilaahay isbaday oo isku dhaqan oo isku isiga oo isku af oo isku diina oo isku taariikha ayaan nahay.
sababaan ugu cararo soomaalida kale meesha ma taalo marka calanka Soomaaliyeed guud axsaanta Soomaaliyeed guudgeeda ka muuqata calanka sharaf ay noo tahay waan ku faanaynaa cidaan ugu cararayna cidaan ku raalgelin ma jirto waxaa ka xiriira inaan maaragtay hadda ka hor dhowrin jiray haddii calanka lagu arko ama astaamaha Soomaaliyeed waxaa loo qaadanayaa in wadankii ka go'ayso ama inaad maaragtay Itoobiyaanimada diidan tahay cidda sidaa u qaadanaysa iyada u taala annaga calamada kale ee la samaystay iyo astaamaha kale nagalama tashato sidaa daraadeed annaga oo Soomaaliya waxaan ku qanacsanahay dadka nagu jecel yahay ma samaynaynaa ma qancin doona cid kale ama qowmiyad kale ama dawlad kale ama dawlad sare oo ka dhigta wadanka arrimahaas ayaa falsafada ayaa aasaas u ah inaan ku noqono astaamihii Soomaaliyeed ee markii hore 10 sano dirisay la laga cararo waata ugu dambeyntii waxaa dad badan ay hadal hayaan xurguf maamulkii meesha ka baxay adiga kala dhaxeeyay sida la sheegay marka inkastoo dareemi karo oo waxa aad u socorta hadda aad qeexday haddana haddii xubnahaasi maamulkaaga ay ka mid noqdaan ama wada shaqeyn idin dhex marto sideed cadaaladda u wajahaysa adiga qudhaada arrimaha la xidhiidha maaragtay aniga shakhsiyan dhibaatooyinka soo gaaray wax saameyn kuma yeelan doonaan hadida maamulka deegaanka xilligii qofka shakhsiga fikirkiisa iyo jacaylkiisa iyo naciskiisa sharci ahayd waa laga gudbay anigu inaan jeclaa dareen bilaadan baan ahay dareen baan leeyahay dadaan jecelaha dadaan nacayo way jiri karaan laakiin arrintaasi inay saameyso hay'adda dawliga iyo sharciga maaha meeshana boqortooyina ka dhawato sidii hadda ka hor loo baahna hadda ka hor 10 sano wixii jiray boqortooyo ama in la xakunimo anigu inaan boqor noqdo uma socdo inaan madaxweyne noqdo u socdaa qawaaniin iyo shuruuc kooban baan ku shaqayn karaa wadan deegaankan wuxuu leeyahay eedar fara badan oo sharci kuwaas inay shaqeeyaan weeyaan oo wixii anigu aan deeraada dabcan inaan sameeyo iga joojiyaan aniga ay dan tahay shacabka dan tahay cidda ay dan tahay arrinta cadaaladda waa arrin maxkamadaha u taala mustaqbalka haddii la yiraahdo aniga arrin siyaasadeed oo hadda aniga aan geli karo iyo kalabaha laakiin anigu guud ahaan fariinta aan dadka ku fareeyo waxa weeye in la soo dhaarfiyo in cidda ka tabanaysa ay maaragtay la xaajooto dhaqanka Soomaaliya sidii ahaan jiray ay la xaajooto anigana cidda aan dhibaato ka tabanayo sidaa baan si dhaqanka waafaqsan aan sameeyo haddii ay ka maarmayaan iska daayo ka sabro ayaan ku dadaali doonaa cidaan hadda dhibaato la maaganahay ama u socda ma jirto laakiin qayb kamid ah dagaalkii socday ee siyaasadeed oo waxaa jira propaganda badan iyo hadallo fara badan iyo qiyaas fara badan qofka haddii qof la dhibaateeyo yahay arrin wax dhibaateeya kuwa hore karo laakiin insha Allah haddii aan ficilkayga ka muuqan doonaan inaan ahayn qof u socda ama argoosi ama dhibaateyn shakhsi iyo